waxaynu saaka halkan isugu nimi wasaaradda xanaanada xoolaha inaynu qaybinno qaybtii hore ee qarbadada biyaha oo midkiiba uu qaadayo 50 foosto xilligii abaartii ayaynu dalbannay qarbadadan hay-adaha caalamka oo dhan baanu ka dalbannay markii aanu dalkoo dhan soo marnay safarkii aanu madaxweynaha ku wehelinaynay axmed siinaami waxaannu aragnay in dhul fara badan looga baahan yahay biyo kayda oo aanay baraaguhuna suurtagal ka ahayn meelaha aanay barkaduhu suurtagalka ka ahayn badanaa meelaha beeralayda ah ay beerta gudaheeda in laga qoda mooyaane ayay suurtagal ka ahayn qaybaha kale aynu aragnayna waa kuwa iminka sida fiican yeelay ee axmed xaashiyo hormoodka ka ahaayeen ee ah kuwa ragga xoolaha dhaqday ama dumarka xoolaha dhaqa ee geela meel ku haya ama lo' meel ku haya ama digaag meel ku haya ee xilliga abaarta markay biyuhu go'aan inay la guurguuraan ay ku adag tahay maadaama ay markii hore bareen xoolahaasi inay degal fadhi ahaadaan oo ay fadhiyaan halkooda oo ay joogaan oo lagu raashimiyo sidaa awgeed waxaanu ugu talagallay barkaddaa noolee socota waa qarbadkaa 50 foostaa inaannu siinno waxaa kaloo aannu doonaynaa oo marka qofkaasi uu saxeexo ee aannu ka saxeexno warqaddaa liiskan horaa loo qoray yaydaan moodin in midka la qorayo horaa loo qoray 3 bilood ka hor baa la qoray qaybta labaad hay-addanina siisay waa isibi iyuuda ayaana maalgelisaa qaybta kale waxayna siinaysaa faaw waana inoo maqan tahay way imanaysaa laakiin maanta istoogka intii taallay istooggii yaallay ayaannu qaybinayna dadkiina naga dhegaysan doona miidhiya ha moodina inay qayba harhsan tahay oo halkan ha ku soo lugoyna waannu qaybinnay dadkaa 10 baana loo qaybiyey wixii markaa yaallay waxaan doonaynaa inaannu shuruudaha idiin sheegno waxaannu ugu talagallay dad iyo xoolaba inay kula cabbaan qarbadka aad hayso dad iyo xoolaba inta awooddaada ah inay kula cabbaan xataa haddii aad halkaa biyaha ku hayso oo biyuhu ka durugsan yihiin dadka kale intooda kale biyaha aad adugu ku shubatay hadday iib kugu soo galeen waad iibin kartaa laakiin qiibo jaban oo ilaahay ku arkayo ku iibi in biyo la cabbo unbaa muhiima waxaana xaaraan ka ah inaad qarbadka dib u iibiso ma ismaqlaynaa hadda qarbadkaa inaad dib u iibiso waa kaa xaaraan waa la jeegarayn doonaa waananu qaybinaynaa hay-adda isibi maxamed baa iminka qaybin doona waxaan iminkana ku soo dhowaynayaa suldaan cumar oo ka mid ah dadka xoololayda ah ee beeraha leh ee geelana leh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore dee nicmooyinka ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaayo dee tamo waa ka mid maanta layna leeyahay waa laydin siinaya baahida loo bixinayo sidaa la sharxay dee waa dareensan tihiin waxaa loo bixinayaa in laga faa'iidaysto looma bixinaya in laga ganacsado laakiin in laga faa'iidaystaa loo bixinayaa marka hore waxaan u mahadnaqaynaa ciddii soo bixisay qarbadada ee loogu deeqday oo isibi hay-addaa la yidhahdaa mar labaadka waxaynu u mahadnaqaynaa dee wasaaraddan xanaanada xoolaha oo iyadu dadkii ay dee maamulaysay oo dadkaa xoolo dhaqatada kow ay ka yihiin u bilowday inay daryeelkii koowaad uga dhigto qarbadada kuwa dambena insha allahu tacaala waxaanu ka rajaynaynaa in ay inta kale ee baahan gaarsiiyaan intan imika qaadanaysa